Dhibaato noocee ah ayaa ka dhalan karta bal qiyaas qashinkan aad u jeedaan oo iga dambeeyo haddii dadka shacabka reer Hiiraan ay heli waayaan fariimo wacyigelineed oo ka socda dhanka maamulka. Iska daa dowladdii hoose iyo dadkii ku shaqada lahaa shaqadan ayaa waxa ay ka seexdeen guud ahaanba shaqadii loogu talagalay. Waxaas iga dambeeya aad u jeedaan waa qashin. Webigan waa idiin soo sawiraya waa webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne. Dadka waqtigan marka uu webiga sidaa noqdo ama jidaalka waxaa looga baahnaa dadka shaqadan leh inay sameeyaan barnaamij wacyigelin sidoo kalena in markaa goobaha iyo webiga ay ka bixiyaan qashinka iyo ooda ku jirta maadaama webiga uu keenayo si markaa dadka ay u helaan biyo nadiif ah. Waxaas iga dambeeya waa qashinkii waxaas oo idilba webigan waa kaas dabcan waa shaashada ayaan ku qaban doonaa. Ma halkan ayaa u baahan in qashinka laga qaado mise laamiga ayaa u baahan in la isku soo sawiro la soo xaqo laamigu oo ahaan xaqin u baahneenba. Qashinkan waa laba qiyaas webigiina waa kaas. Dhibaato caafimaad mid nololeed ayuu si toos ah ugu yeeshay dadka ku sugan xaafadan iyo guud ahaanba shacabka reer Beledweyne oo inta badan aan helinba goobo caafimaad oo nadiif ah, biyo nadiif ah iyadoo isla markaana webigii sidaan markuu noqdo laga rabay maamulkii in wax uun ka qabto dadka shaqada ku leh waa naqaanaa ee webiga ay ka bixiyaan geedaha ku jira ee qashinkan ay ka nadiifiyaan maadaama shaqada ay ka seexdeen waxaan diyaar u ahay aniga ugu horeeya oo liibaan subanaya inaan tago goob waliba oo qashinka lagu daadiyo sidaan oo kale ah aan u soo bandhigo ya haddiise wax ay ka qabanayaan haddii kaleba qashinkan iyo webigaas iyo dadka halkan maraya runtii waa arrin aad u xun oo maamulka uu ka seexday sidoo kalena goobo kala duwan oo aan loo baahnayn sida laamiga oo nadiifka ah iyo xarumaha dowladda iyo saldhigyada